إنك الصومالي هدانا عقدة إنه جرتوا ودك يعني مسلمين تاع عقدة إنه ما ينجرين قف كان ومسلم هدي لي هذا وإنه قف الليل لكن ما أنت حد عظيم إن ليس كشكيو والروح أو مسلم لي هذا عدين هذا مسلم تاع محانو عدين هذا كرتا مايا قفك سيدا الخبيالة كان بالله أقنصر إنه مسلم يه هذا كودن محل قال السوقين كرا مركو أو ليه كرا صح هذا والله صح مسلم تحديثك أنا سوقل بوالو جاكرين آيات الإسلام كو كوين يا سلاس قرآن كم كو سود جاي يا وحاجة الصلح العربي مركي ليشي شروطي لويشي وحكم لها أو خنتي مقال كمركي لفير المسلمين تو أي كعروضين قفكي قال هذا كأي ماذا أو مسلمين تو يماده مسلمين تو إن كاس مسلم كأو يمد أي قال هذا كل عريان دومة الجندل أيضا الشركي مركي الله فديبا أون لا كلا دريري يا أصوات صوغ وصي وسلسلة دي سي جيدايا أيوم مسلمين تيكو سوكر نعي مركز نينكي قريش وأهل وحوري هشيسك ورقدي عن كقرني قالنك عن كقرني ولي مونا قلالين ولي وسيقو ياهي فلنتي سنة وحلقة بالله نين كان إن دب لوغو عليو مكة أو نغا سو غوست مركز انتي لقبتا لوغو وريجي حالي قواكنا وإن مكة لوغو عليو عمر بن الخطاب ويقول انتمي ويسن نين مسلم oo soo baxsaday oo soo rafaaday gaaladii uu ka soo baxsaday in dib loogu celiyo markaas intuu yara garab socday asoo yaani sabirsiinaya iska noqo ilaahay faraj buu ku furi doonaa saa uu celiyay bas xoogaa markay socdeen meel xasiin maraayaan buu hal mar intuu ka booday kuwii waday oo seefti uu la baxay ayagu ay wateen ayuu kala eriyay asna uu cararay duurku galay marka bal madiinana ma jira makana ma joogo duurkaas kale iga soo qabtay markaas oo meesha qof kasta oo muslim ah oo ka cabsanay haduu nabiga iyo madiina aado heshiis baa ka yaalay in la soo celiyo madiinaba ma aadee dawmatul jandal xabuu joogaan buu dhahaa halkaas waxa ka samaysantay marka jabhad mucaarad ah oo maka raashinka galaya iyo safarka meel ay maraan u diidayso waa kaas wax ka qaadab way is aruursadeen jabhadaas ay samaysteen ruux bixi karo oo maka ilaa markii dambe warqad ay ka soo qoraan gaalada ay dhahan maxamedow ninkaas duurka ku jira annaga ayaa u fasaxnay oo heshiiskii annaga ayaa ogole intaad u yeerato meeshaada ha yimaado hana noo soo celinin ilaahay faraj u furay bas sidii lagu geeyay waxa soo baxday markii dambe gabdho ayaa soo baxsaday oo mu'minaad ah markaas ay asxaabtu u imaadeen gaaladii waxay yiraahdeen heshiiskii qof kasta oo naga yimaado ayuu ahaa rag iyo haween looma kala saaraynin gabdhahaas waa in la soo celiyo gabdho iyo niman isku mid ma ah niman way jabhadayn karaan oo duurkay gali karaan laakiin gabdho ma jabhadayn kara asxaabtu way ku adkaatay inay gabdho mu'minaad ah ay dib u celiyaan aayada soo degtay marka waxa la yaayo nabiyu idha jaaka almu'minatu muhaajiratin famtahinuhunna imtixaanka qaada imtixaanka la qaado ma taqaanaan su'aalaha la weydiinayo waxay tahay ilaahay rasuulkiisa ma rumaysantiin ka soo tagitaanka aad marka ka soo tagteena jacayl ilaahay rasuulkiisa aad u qabtaan miyaad u soo baxdeen mise xanaaq nimankiina aad ka soo xanaaqdeen ayaad u soo baxsateen hadday dhahaan ilaahay rasuulkiisa jacayl aan u qabno ayaan u soo baxsanay imtixaanku way ku baasaayaan waxa la famtahinuhunna imtixaan oo waxa lagu imtixaan iimaankooda iimaanka la isku imtixaami marka iimaanku waa wax qalbiga ku jira oo qofka gudihiisa wax ku jira haddii intana meesha fariyo qof qalbigaaga waxa ku jira cid sheeg karta ma jirto iimaan aan leeyahay marka dhahdo yaani oo aad sheegato waa in inta aad sheegatay laga qanco laakiin hadii leedahay ma sheegashada aad sheegayso waxba kama jiro waa in gudahaaga aan soo ogaado inuu run ka yahay in kale shaqaan la inoo dirin way taas oo ilaahay muxuu famtahinuhunna imtixaama allahu a'lamu biiimaanihinna iimaanku idinku guduhu ku jira ma ogaan kartaan dhabnimadkiisa iyo in kale laakiin idinka maxaa masuudi ka saaran yahay banaanka wixii laga sheego ilaahay rasuulkiisa rumaysanahay haday dhahaan mar rumaysnid gudahaaga afkum baad ka sheegtay laba dhahayo famtahinuhunna allahu a'lam biiimaanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar hadaad ogaataan inay mu'minaad yihiin gaaladaha u celinina inay mu'minaad yihiin see lagu ogaan marka halkaas su'aal baa la weydiin ilaahay rasuulkiisa ma rumaysantiin ha ilaahay rasuulkiisa aan rumaysanahay bas waa mu'min marka Soomaalideena say saa u ahayd oo muslimka yaani la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah qofkii yiraahda muslim uu ahaa umba waxa la soo dhajiyayba ma baan saxaysaba la ilaaha illa muhammadur rasuulullah idana sheegaysaan waa in dib loogu noqdo waa maxaa ka rabtaan
محاضرة الإعلامنا يا على عقربت كسر دواء محاضرة يا جرتا هي محلها الله يا نواقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا البرنايا ورمحاو برنايا ستات كرمت أدوك برنايا هذا واحد دليل أو هاي صوت لا ماشى سي كما في عنهم أديكوا عندي ولا جاب برنايا ست ترتيب وحاوتر هذا هالكاس وكاخل دي هالكا توسيسو نبي موسى دكي لسه عند محيكو يرادين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة صور وين ما هذا الروح الدليل هذا ودو يرادو أنا وحان ربا إلهي إلا عيسى مايو بسم الله الرحمن وين وكو الله صوما اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نوم سمحوكو يري قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالم في ردتك لا يجعل لنا إلهنا وحال إله وإذنك موالنتين أدونك إذنك أبو قصر رئيسين به قف أدونك أبو قصر رئيس هوس الصديق يحكي الله وارك مرة قف مرة وحوش يجيسو وحال الله وش يجا كرة الله قاضى يعني وات في عنتاي ساس لكن هذا اللي سوى يستاكتو وحاجي هرب نو برسنا هذه يكو الله بلابا ماذا سفينة الله بلابا هذا كور وتكنجري بري جوهر مركز سفينة صلاة أكل دقي موت يصير لا يابله فاتحدث حتى وحكوا آخرنا يا التشديدات في الفاتحة فوق الراء وفوق الشين شد ماشي لسارة أيضا وأين تصور آخر الرحمن الرحيم بري جوهر ما كنت كنا وسكدر يرجع ما الرحمن الرحيم مالك يودي سفينة مركو سود ميين يقول إلهي يو صلاة دي أن تكنجري سفينة كور أجر كمر ربعه يعني لا يقبسني إبرة هذا تيور وحن تقول يعني لا يقبسنونه مركا سلاس وكلا دي جرتوا ذلك قارك إلين لا إله إلا الله ذي النهار وحبك مجرى هذا الذين بالله بايا وحن سوق هذا المسلمين ماذو هذا ما ينا بالله بني وحن كسر بلون أنت النبي أن سوق آخر القرآن كجرت نبي نحسوا كمان سوق بالله مسلمين تكمل أها أو حور فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نبي نوح هذا دين تين مركب نبي نوح هذا قبيل تين من المسلمين وها إننا محلين إلى هذا هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين نبي قال محلين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين وأمرت لأن أكون أول المسلمين نبي إبراهيم محلين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي يوسف وحوري ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين مركزتك مسلم كأسداسة أيام كصفنا أنت أنا ماشي نجوك تاديات سؤالين ويديو وحات شيكتا مالك يكوه الرئيسي وأتكون واقضي لا إله إلا الله محمد رسول الله بل عندك هكسو جوت فرتها تكتب قف هدو جرو حصوصا كرة مالك يكوه الرئيسي لا إله إلا الله محمد رسول الله أورناهي الله صار شيكو لا يوجد لمه لا يواي سواتهم حيتهاي سوات وحيتها كل مولود يولد على الفطرة قف كستو الله دلاي إسلامي وكل شيء حتى عروت قال موتى ومسلمين إلى كان جاران ويكجالوبان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حاجة كلا لما دهن فين مسلمين ما كلا تلمام أيوه دين تمسلم كلا مش يجي ولا ما دهن هل كلا غير فأبواه يهودانه أبياشي سا والد كيسا يهود كدجاي أما كريستان كدجاي أما مجوس كدجاي أبيالكيسا مسلم كدجاي لما دهن لما بشيء لأن إسلام نمضوا ما الله لا حنا مجرت عيدا فدرة اللغة شيء كل مولود يولد على الفطرة عيا إسلام كاهد قف كمسلم كأمرك أو أبيه يريد مسلم كهاين ماشي مكسي وضايا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سيدا سمك إنه وضتاه وده حافظ إنه طريقين كم يدمرك دعينا وحوله إلهي ومسلمين تملي جوجان با موافقة يمن نمسي قال لنا تفرارق يكلتك إلهي وكرد سو ما قلب فعنا وذا كاس مسلمين تودن ميلي جوجان با أسوأ ما كلا قاضي سلفية إخوان مسلمين يتبليغيو صوفية معه مسلمين تملي جوجان با إله موافق السيم ما كحال بقى مسلمين تينا دو فهمتين قف كستو لا إله محمد رسول الله ده معه كوح هذا أوكليا مسلمكم معه إسلامكم كون يهال كوح أوكليا ساس درادة الشيخ حسن البنا وحوي وحنو شيء وليعلم قومنا ضد كانوا هؤلاء ما كاسع حقدر وليعلم قومنا وكل المسلمين قومنا مسلمين تودنا وقوم كني وليعلم قومنا وكل المسلمين قومنا انت اسمك بسوق قران كرنا ان المسلمين تودن اي قوم كنيين حي وحنا ما كلنين انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم
dadkii la ammaanay muhaajiriin iyo ansaar quraanka lagu tilmaamayna ayagoo duruuf adag ku jiro oo guryahoodii laga soo saaray oo xoolahoodii laga dhacay ayaa haddana waxay ahaayeen yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwanan wayansuruuna allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisa u gargaareen waan dhibaataysanahay diinta loogama joogo diinta adoo dhibaataysan la rabaa in la wado ulaa'ikum saadiquun waxa la amaanay kuwii soo dhaweeyay oo ansaaraha walladina tabawwa'u daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu kadib waxa la sii amaanay dadka gadaalka iimaan doona oo tilmaamahooda ay kamid yihiin walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وما waxay ku dhisantaa marka sidaan dadkii inaga horeeyay inaan u qirno wixii juhdi ah oo ay diintan soo galiyeen una ducayno haday wax ka xumaadeen ama dhaliilaan ku aragnana rabbana ighfir lana ayaa u taal ilaahay u dambi dhaaf lama caaya dadka waxa laga ma sheego tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alayha maktasabat wala tusaluna amma kanu ya'malun adiga xaakimatid lagu badirin wama ursilu alayhim xaafidiin dadka iisoo waardiye lagu ma dhihin adiga wixii ka khaldamay ilaahay u dhaaf dadka nool ee joogay muuminiintana maxaa laga rabaa inaad samayso inaad ku ducaysato wala tajcal fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qof mu'min ilaahayow oo ruxmayana qalbiga ugu haynin walaatinimada islaamka meesha uu koraysan waxa la yiraahdaa al-ithar wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qof wuxuu u baahan yahay intuu isdhaafiyo walaalkii inuu siiyo waa meesha ugu sareysa walaaltinimada meesha ugu hooseysan laga hoos mari karna waxay tahay salaamatu sadri laabtaada inay nadiif u ahaato qof kasta oo muslim ah oo aadan xiqdi iyo ruuxmo qof muslima qalbiga ugu haynin waxana qofka muslimka hadda isfahmi weydaan kala leexda qof walba ilaahay saa caabudo isuna duceeya qalbigana hal isu faro qof muslima uqdada aad u qabto ma tarayso laakiin hadda maxaynu aragnaa Soomaali maxaynu ku dhacay waxa ama masaajid ha ahaado ama idaacad ha ahaato ama telefishan ha ahaato ama Facebook ha ahaato dada waxay la taagan yihiinba say dadka isugu diri lahaayeen hadal fiican ba kama maqlaysid hebel waa sidaas koox hebel waa sidaas hebel waa sidaas hebel waa waxaasna waa wax la isu xisaabinayo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid marka ilaahay qalbigeena inuu saafi ka dhagal raba saxaabigu wad ogtiin nabiga ugu bishaaray jannada inuu galaayo saxaabi kala umirtay wuxuu yiri bal aad soo ogaatay wuxuu jannada ku mutaystay wuxuu arkay saddex habeen uu la joogay wax dheeri ah oo sameeyay aysan jirin markii dambe uu sheegay wuxuu bishaaradaas aan ku wada nabiga jannada ugu bishaareeyay waxa aad isleedahay jannada ku mutaysatay ma ii sheegi kartaa wuxuu inta aad arkayso baan sameeyaa ee caamka ah laakiin waxaan isleeyahay habeenkii markaan seexanayo qalbigayga isagoo saafi muslimiinta u ah ayaan seexdaa marka inay taas taan u malaynaaya mar waxa rabaa habeenkii marka la seexanayo in muslimiinta la iska cafiyo wala ilaahay qof muslim qalbiga wax ugu mahaayo laana inaad dhiman doonto inaad soo kici doonto lama oga الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى مركا ذو قلبك يسافيها إنها تكتو ساس أيها في عن مركا إن ليس عفيه إن ليس مسامحه إن ليس حد قلبين إنت سي دينتينو هي محبة دينتي معانك هذا ساو في عناد ونباو حلوب بدليون وحن نقول شين كريم oo dhib badan oo dadka isku rafaadeen taas marka waa fahamka oo qalloocday diinteena islaamku waa diin nololeed iska dhaaf muslimiinta dhexdooda xataa gaalada ayay naxariisu tahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin tabaaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira adunku dhan nabiga loo soo diray marka ilaahay tawfiiqayna waafajiyo ummadeena qalbigeeda Allah isu soo dumo dhibaatada aan ku jirna Allah inaga bixiyo colaadaha iyo waxyaabaha wadanka ka jira ilaahay nabadha inoogu bedelo quluubta ummadeena Allah isu soo dumo isjacayl iyo walaaltinimo ilaahay qalbiga isu geliyo colaada iyo dhibaatooyinka iyo isnacaybkana ilaahay inaga qaado inagana ilaahay inaga dhigo dad hawshaas ka shaqeeyo oo dadka isu soo dhaweeya oo aan dadka kala erin muslim meel uu joogaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u gargaaro sallallahu ala sayidina muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh